السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي وولاشي فردوسة ما أنت وحاربة إنا أسحسوسينو إن لبك المدود أناقه مهم إنوعه هادين قبرتهاي أو هوش القرق كوات كاتو هاداد ويلتهاي أو شقدي يوح برشدي كوات كاتي هاداد كعاجست عبادتي إله سبحانه وتعالى كولها haddaad qof xaasa tahay ood hawshii guriga iyo hawsha caruurta isku keeni laadahay kugu adag tahay laba kalmadood oo kuu fudaydinaysa maalinta yawmal qiyaamana miisaanka kuu cuslaynaysa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa laga jecel yahay ayaan maanta isu sheegaynaa isna xasuusinaynaa labada kalmadood xabiibkeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu ahaa mid markaste asxaabtiisa iyo ummadiisa u bishaareeya wuu noogu bishaareeyay sallallahu alayhi wasallam labada kalmadoodna nabigeena alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiraahday kalimatani habibatani ila arrahmani khafifatani ala al-lisani thaqilatani fil mizani subhanallah wa bihamdi subhanallahi al-azim wuxuu leeyahay nabigeena sallallahu alayhi wasallam laba kalmadood oo waxa jira ilaahay agtiisa laga jecel yahay carabkana ku fudud miisaankana ku culus maalinta yawmal qiyaamah waxayna kala yihiin subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim labada kalmadood hadii aad carabkaaga barto oo markaste ku celceliso haddaad gabar tahay ood xaas tahay ood gurigaaga joogto oo awlaadii iyo asku haylnaadahay hawshii guriga way ku fudaydinaysaa waayo waxay ku siinaysaa nashaad maxay ahayd iyo firfircooni ilaahay agtiisana waa laga jecel yahay waxay ku cuslaynaysaa miisaanka haddaad waxbarashada ka caajistay haddaad cibaadadii ilaahay kugu lahaa ka caajistay hadday hawlo badan kula soo darsaan way maskaxdaadu mashquuliso xaajooyin badan sida oo kaleeto way ku fudaydinaysaa oo ilaahay agtiisa laga jecel yahay miisaankana way ku cuslaynaysaa haddaba hamugaanin inaad carabkaaga barto subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim tijaabi wax kasta iyo xaajo kasta oo kula soo gudubta waxaad helaysaa fudaydkeeda iyo farxadeeda waayo waa laba kalmadood oo ilaahay agtiisa laga jecel yahay miisaankana ku culus maalinta yawmal qiyaamah hamugaanin ina aad tiraahdo subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim ilaahayna agtiisa laga jecel yahay ذنوبهاga oo dhanna ay ka xog badan tahay miisaanka ay ku cuslaynayso xabiibkeena sallallahu alayhi wasallam uu yiraahday hamugaanin walaashay iyo walaalkayow markaste waa inaad xasuusataa subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim haddaad socoto haddaad jiifto haddaad fadhido intaba haddaad iskuul ku jirto haddaad shaqo hayso haddaad maxay ahaydey jiifto waad dhihi kartaa waayo carabka ayay ku fududahay ilaahay agtiisa waa laga jecel yahay miisaanka way ku cuslaynaysaa maxaad ku daynaysaa soo inaad tiraahdo wax kasta oo naftaada farxad gelinaya ina aad ku celceliso waa jeceshahay muhiimada waan wada doonaynaa farxad waan wada doonaynaa in dambiyadeena la dhaafo waan wada doonaynaa in wax kasta oo nagu adkaadaan noo fududaadaan laakiin waa inaan dhahnaa subhanallah wa bihamdihi subhanallahi alazim هنا موغان هدبا بلو وتجابي adiga ayaa dhadhamin doona macaan keeda. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.